barnaamijkii daqiiqada ka hor baxay isbedel ayaa ku yimid macnaheedu waxa weeyaan waddanka Venezuela war ayaa ka soo kordhay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in gacanta lagu dhigay oo la qabtay madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro iyo weliba xaaskiisa arrintani waxay ka dambeysay kadib markii saaki waa barigii duqeymo culus lagu qaaday waddankaasi Venezuela iyadoo wararkooda taasi ay ku darayaan in laga bixiyay waddanka madaxweynihii waddanka Venezuela iyo xaaskiisaba sida hadda aad ku aragtaan qoraalkan uu soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump baraha bulshada uu soo dhigay waxa uu ku leeyahay Mareykanku si guul leh ay wax u qaadeen duqeyn ballaaran oo ka dhana Venezuela iyo hogaamiyaheeda Nicolas Maduro iyo xaaskiisii ayaa la qabtay waxaana laga saaray waddanka howlgalkan wuxuu ahaa mid isku xiran oo ku wajahan fulinta qaanuunka Mareykanka si hadalka uu dhigay wuxuu sheegay inuu qaban doono shir jaraa'id saacadu marka ay tahay 11 subaxnimo xilliga gobolka Florida waad mahadsantihiin buu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuuna si buuxda ugu dhawaaqay in gacanta lagu dhigay madaxweynihii waddanka Venezuela Nicolas Maduro wararku hadda soo dhacay hadii aynu eegno waxa la sheegayaa in madaxweynaha waddanka Cuba Miguel Diaz-Canel uu si adag u cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay ficilkan dambi Mareykanku uu ku qaaday waddanka Venezuela sidoo kale madaxweynaha waddankaasi Colombia Gustavo Petro ayaa isaguna waxa uu sheegay in la duqeeyay dekad iyo xarumo military iyo sidoo kale goobo khaas ah iyo garoomo diyaarado khaas ah waxaana uu ku eedeeyay Mareykanka inuu qas iyo qalalaase ka abuurayo gudaha waddankaasi Venezuela wararka ugu dambeeya haddaynu sidoo kale eegno waxa la sheegayaa in ciidamada la yiraahdo Delta Forces waa ciidamada gaarka oo sida gaarka u tababaran inay ku degeen madaxweynaha Venezuela kadibna waxa la sheegay in halkaas ay ka qabteen waxaana lagu soo waramayaa in ay ka wateen isaga iyo xaaskiisiba waddanka Venezuela ciidankan waxa lagu yaqaan in ay isku dayaan howlgallo military oo caalamka ay ka fuliyeen waxa kamid ahaa Soomaaliya markay isku dayaan qabashada General Aidid oo kamid ahaa hogaamiye kooxdii Soomaaliya laakiin ay ku guul daraysteen in la qabto kadibna uu dhacay dagaalkii la magac baxay 3 Oktoobar 1993 oo 18 askari Amerikaan lagu dilay sidoo kale waxa la sheegayaa in ay howlgallo ka fuliyeen waddanka Iran gaar ahaan 1980kii arrinta la xiriirtay dadkii lagu afduubtay safaaradda Mareykanka oo ku lahaa waddankaasi Iran haddaba warkan hadda soo dhacay wuxuu yahay in waddanka dibadiisa loo saaray waxay u badan tahay in loo qaaday waddanka Mareykanka madaxweyne Nicolas Maduro waxaana tani ay ku xigtay baan leeyahay kadib markii saakay duqeymo lagu qaaday waddanka Venezuela caasimadiisa Caracas iyo dhowr magaalo oo kala duwan warbaahinta waddanka Venezuela ayaa soo warisay qaraxyo ka dhacay gobolka xeebta ee La Guaira oo waqooyiga ka xiga magaalada Caracas iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo Higuerate waxaana warku intaasi sidoo kale uu ku darayaa in saldhigga ciidamada cirka ee La Carlota la weeraray laakiin arrinta muhiimka waxa weeye oo haatan soo dhacaysa warka ku aadan in la leeyahay ninkan madaxiisa waxa saarnayd 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah Nicolas Maduro Moros waaxda amuraha waaxda cadaaladda waddanka Mareykanka ayaa soo saartay lacagtaasi 50 milyan ah ee la siinayo Nicolas Maduro cidii soo qabata dad badan oo arrimahan ay ka faaloonaya waxay leeyihiin arrinta waxay u muuqataa arrin gudaha laga shaqeeyay sababtoo ah Nicolas Maduro barnaamijka ka horreeyay waxay la soconaa markii duqeyntu ay bilaabatay inuu sheegay in waddanka xaalad degdeg la geliyay isla markaasna dadku qoryaha ay qaataan oo ay isdifaacaan laakiin waxa loo badinayaa dad aad ugu dhow in markaa ay ka shaqeeyaan hawshan lagu afgambiyay isla markaasna ciidamada Mareykanka ee Delta Force ciidamada gaarka ay ku soo degeen goobtii oo ku sugnaa halkaasna ay ka wateen isaga iyo xaaskiisii laakiin warka sidoo kale la yaab kale waxa weeye wasiirka gaashaandhigga ayaa isna hadda hadlay wuxuu leeyahay waddankeena waa lagu soo duulay
waynu dagaalami doonaa sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan. telefishinka CBS ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale soo tuuray warka ku aadan in ciidamada la yiraahdo Delta Forces ay iyagu mas'uul ka ahaayeen qabashada madaxweyne Nicolas Maduro. waxaana warku intaa ku darayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu amray soo qabashada madaxweyne Nicolas Maduro iyo waliba duqeyntan. Nicolas Maduro maxaa laga yaqaan? wuxuu qabtay madaxtinimada waddanka Venezuela 15kii bishii Abriil 2013. horey wuxuu u ahaa nin basaska wada laakiin madaxweyne ayuu noqday kadib markii uu bedelay Hugo Chavez madaxweynihii hore ee waddankaasi. doorashadiisa markii lagu dhawaaqay mucaaradku waa ay ka hor yimaadeen waxaana ay ku tilmaameen inay tahay mid ka baxsan dhexdhexaadnimada oo lagu shubtay sida hadalka loo dhigay. xaaladan ka soo korortay waddanka Venezuela ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo Mareykanku dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ciidamo aad u fara badan uu dhigayay waddankaasi Venezuela xeebihiisa isla markaasna hawada waddanka laga xiray gebi ahaanba dayuuradaha gebi ahaanba laga xiray. waxaa kaloo wararka ka mid ah in Mareykanku halkaasi uu geeyay ciidamo aad u fara badan iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka F-35 maraakiibta guujisada nuclearka uu ku rakiban yahay iyo markabka diyaaradaha ugu weyn caalamka waa markabka diyaaradaha xambaara ee caalamka ugu weyn Gerald Ford. arrintan waxay u muuqataa ayay khubaradu leedahay hadda hadlaysaa inaysan u muuqan Mareykanku inuu si degdeg ah waddankan xoog ugu galay laakiin ay tahay arrin gudaha waddanka laga shaqeeyay isla markaasna si toosa loo abaaray goobtii uu ku sugnaa madaxweyne Nicolas Maduro. dad badan waxay filayeen dagaalka inuu noqon doono dagaal gudaha la isla soo galo. arrintaasi xitaa khubarada Mareykanku ay ka digayeen oo ka mid yahay Colonel Douglas Maguire wuxuu sheegay in haddii Mareykanku lug uu ku galo waddanka Venezuela oo duulaan lagu qaado sida Ciraaq ama Vietnam oo kale dagaalkii Vietnam waxa ka daran inay ka dhacayso laakiin sida muuqata waxa la leeyahay arrintan waxay u muuqanaysaa gudaha in laga shaqeeyay isla markaasna lacagtu ay shaqaysay oo la dhex galay. waxaan ka warqabnaa sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu amray CIA-da Mareykanka inay gudaha ka howlgasho. waxay u muuqataa marka in Nicolas Maduro dadka ka shaqeeya soo qabashadiisa iyo ciidankuba ay ahaayeen kuwa isku xiran oo arrintan ay tahay arrin si weyn looga shaqeeyay. maxaa ugu dambeeya haddaba aynu eegno wararka soo kordhaya hadda soo dhacaya? waxaa leeyahay madaxweynaha waddanka Venezuela ayaa hadda la qabtay lama oga meesha la geeyey laakiin isaga iyo xaaskiisa waxaa la sheegayaa in laga saaray waddanka. horey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu u sheegay inay qaban doonaan Nicolas Maduro isla markaasna maxkamad la horkeeni doono. dhanka kale madaxweynaha Venezuela wuxuu ku adkeysanayay inuu isdifaaci doono dadka waddankiisana ay dagaalami doonaan. wuxuu kaloo ku eedeeyay Mareykanka inuu u socdo inuu boobo khayraadka waddankiisa. waddanka Venezuela waxaynu ognahay inuu yahay waddan aad hodan ugu ah gaaska dabiiciga waana waddanka ugu shidaalka badan kaydka shidaalka caalamka oo idil. arrimaha la yaab kale soo baxay waxaa ka mid ahaa oo bishii hore madaxweyne Trump uu sheegay wuxuu yiri Venezuela waxay naga haysataa dhul shidaalkeena ay xaday mukhaadaraad ayay nagu soo daldasha waan ognahay dhowr jeer inaan idin soo gudbinay doonyo la weeraray oo la sheegay inay sideen mukhaadaraad. haddaba bal qaraxyadii dhacay intaan la qaban Nicolas Maduro aan idin maqashiino iyo jawigu sida uu ahaa iyo xaaladda Caracas duqeymihii dhacay saacada ka hor. وهاجاج magaalooyin kala duwan ayaa la weeraray oo magaalada caasimadda Caracas ay ka mid tahay iyadoo la sheegayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si toos ah u amray weerarkan. dowladda waddanka Venezuela waxay sheegtay in la weeraray xarumaha militariga iyo goobaha rayida waxaana ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah. ilaa hadda dhanka Venezuela kama soo bixin war la xiriira in la qabtay madaxweyne Nicolas Maduro iyo xaaskiisii marka laga tago hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ee la xiriira qabashada Nicolas Maduro. madaxweynaha waddanka Cuba ayaa wuxuu ku eedeynayaa Mareykanka dambi dagaal sida hadda warka ugu dambeeya uu sheegayo.
dhanka Venezuela jahwareer baa jira dad badan waxay leeyihiin arrintan waxay u muuqan kartaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku talagalay in isku dhaxyaac laga abuuro oo ciidankii u dagaalami lahaa Nicolas Maduro la isku hor keeno oo markaana ay arrintu jahwareer noqoto oo qaarkood ay hubka dhigaan ama ay dagaalami waayaan laakiin madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay gacanta ayaynu ku dhignay Nicolas Maduro iyo xaaskiisii wadankana waynu ka saarnay buu leeyahay marka warkaas waxa laga hayaa dhanka Mareykanka wakaaladda wararka ee Reuters war ay ka soo xigtay mas'uul sare oo Amerikaan ah wuxuu sheegayaa in si toos ah Mareykanku ay duqeynta u wadaan isla markaasna ay beegsadeen wadanka Venezuela waxaana sidoo kale CBS ay timinaysaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagu inuu toos u amray arrintan meelaha sida gaarka loo beegsaday sidoo kale waxaa ka mid ah marka laga tago magaalada Caracas ee caasimadda ah deegaanka la yiraahdo ama magaalada la yiraahdo Santa Monica Fortuna Los Tawajes ayaa la weeraray xarumo military ayaa sidoo kale la weeraray wasiirka gaashaaniga gurigiisa oo kale ayaa la weeraray ilaa iyo hadda oo barnaamijkan aynu wadno oo tooska ah ma jirto war rasmi ah oo aynu ka hayno dowladda waddanka Venezuela iyo xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro dhinaca kale Ruushka ayaa isna war soo saaray wuxuu sheegay Mareykanku inuusan qiil u heli karin inaba haba yaraatee weerar lagu qaado waddankan Venezuela isla markaasna arrintaasi ay tahay arrin aan loo heli karin wax qiil ah macnaha waxa weeye hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu leeyahay waddankan Venezuela qatar buu nagu yahay oo muqaadaraad baa naga soo galaya iyo dhul baa naga haysataa Venezuela shidaalkeena bay xaday waxyaalahaas waa waxyaalaha qiilka uu ka dhiganaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu duulaan ku qaado waddanka Venezuela inkastoo arrintan ay aad uga soo horjeedo qawaaniinta caalamiga sida khibrada arrimaha qaanuunka ku takhasusay ay sheegayaan marka Mareykanku wuxuu u dhigayaa hadalkiisa inuu xaq ay tahay inuu weeraro laakiin Ruushku wuxuu leeyahay qiil uma heli karta arrintan inkastoo Ruushka laftigiisa lagu haysto oo leeyahay adiguma Ukraine maxaad ku haysataa oo ku qabsatay 4 gobol iyo jasiiradii Crimea oo horey aad u haysatay arrintan marka khibrada arrimaha diblomaasiyadda iyo kuwa istaraatiijiyadda waxay leeyihiin adduunka way ka dhamaatay waxa la yiraahdo ixtiraam qawaaniinta caalamiga ah Shiinaha laftigiisa isha lagu hayaa oo sanadkan foodo inagu soo haya ama sanadka soo socda 2027 waxa la leeyahay suurtagal waxa ah in markaasi uu ku duulo jasiiradda Taiwan arrinta marka waxa leeyahay waxay siin kartaa fursad Shiinaha markii hore Ukraine duulaanka Ruushka uu ku qaaday wax badan bay adduunyada wax ka bedeshay qawaaniintii u yeelay haddana waxa leeyahay Venezuela ayuu Mareykanku weeraray sida Venezuela ay ku doodayso madaxweynaha Mareykanka wuxuu socdaa bay leeyihiin inuu shidaalkeena uu boobo oo uu qaato Shiinuhu marka muxuu ku addoon doonaa haddii uu doonayo inuu weeraro waddanka jasiiradda Taiwan ee ka irdhowday xaaladdu marka meel adag maraysa waxaana moodaa madaxweyne Nicolas Maduro in laga hoos kacay maalmo ka hor wuxuu lahaa waa dagaalamaynaa waliba isagoo waxa la arkay Mareykanka qobka ciyaaraya oo leh aniga maxaa laga qaadi karaa bal muuqaalkan aynu daawano wada arkaysaan maalmo ka hor marka wuxuu lahaa waa bishii hore muuqaalkan wuxuu leeyahay arrintan inay u muuqato in uu iska dhicin doono Mareykanka oo ka hortagi doono bal aynu eegno war hadda soo dhacay telefishinka Sky News ayaa wuxuu leeyahay xubno mucaaradka ka tirsan ayaa waxay u sheegeen warbaahinta inay rumaysan yihiin qabashada Nicolas Maduro inay tahay wada xaajood ku aadan inuu ka baxo waddanka macnaheedu ay tahay inuu ogolaaday inuu ka baxo waddanka oo marka wada xaajoodka uu dhacay ama Mareykanku ha qabteen ama meel kale hal la geeyo laakiin in arrintan ay tahay arrin wada xaajood ku timid ay hogaamiyaasha mucaaradku leeyihiin oo si hadalka loo dhigay laakiin warkan waxa ka duwan warka uu sheegayo wasiirka gaashaandhigga waddanka Venezuela oo uu leeyahay waan dagaalamaynaa si kasto xaaladdu ay noqoto waan dagaalami doonaa ayuu leeyahay ma hayno war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka xukuumadda marka laga tago hogaamiyaashan mucaaradka
safaaradda Mareykanka waxay ku wargelisay dhammaan dadka muwaadiniinta Mareykanka inaysan u safrin waddanka Venezuela iyo waliba xuduudihiisa waxaana la soo saaray wargelin heerkeedu yahay heerka afraad oo ah inaan loo safri karin waddanka Venezuela gebi ahaanba waddankan waa waddan runtii qani ku ah hodan ku ah shidaalka waxaa la sheegaa in hogaamiyaashii ugu dambeeyay intooda badan ay ahaayeen kuwa ka soo horjeeday madaxweynaha Mareykanka gebi ahaanba ka soo horjeeday Nicolas Maduro ilaa 2013 ayuu madaxweyne ahaa Hugo Chavez 1999 ilaa 2013 ayuu isaguna wuxuu ku ahaa waddankaas madaxweyne uu ka ahaa isagoo markaana aad uga soo horjeeday siyaasadda Mareykanka waxaana la sheegayaa inuu ahaa nin si weyn Mareykanku ay isugu dayaan inay qaarajiyaan dhowr jeer waxaa kaloo arrintan laga xusi karaa waddankan muddooyinka ugu dambeeyay in cunaqabatayn ay saarnayd cunaqabatayntaasna ay keentay sicir barar aad u ballaaran iyo maciishada oo qaali noqotay iyo nolosha oo adkaatay dad badan oo mucaaradka ka tirsan ayaa iyagu laftigooda arrintani si weyn uga hadlaya oo leh xaaladda waxa ugu wacan Mareykanku sidoo nooga hor yimid waxaa kaloo xusid mudan ayadana in arrintan Mareykanku dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ay ka dhigayaan inay Iran weerar ku yihiin oo laakiin dhanka Venezuela laga jeestay inkastoo ilaa bishii August Mareykanku ciidamo fara badan uu geynayay jasiiradaha waddanka Venezuela gaar ahaan xeebaha Caribbean-ka oo waliba xitaa waddanka la yiraahdo jasiiradda Puerto Rico waxaa la geeyay dhowr diyaaradaha dagaalka ee F-35 sidoo kale markabka dagaal ee adduunka ugu weyn ee diyaaradaha xambaara Gerald Ford ayaa la geeyay halkaas marka bishii August ilaa iyo September October November December weerarkaas ayuu waday Mareykanku iyo duulaankaas ayuu waday arrinta kale oo muhiimka waxay tahay dhowrkii maalmood ugu dambeeyay madaxweynaha Mareykanku wuxuu u bedelay arrinta dhanka Iran buu u bedelay iyo in uu taageeri doono mucaaradka raalli ahaada barnaamijyaasha waddankaasi Iran barnaamijyada oo wuxuu leeyahay haddii la laayo barnaamijyaasha annaga ayaa dagaalka soo geli doona ayuu dhowr jeer u yiri oo waan taageeri doonaa Iran laftigeeda arrinta way ka soo jawaabtay toddobaadkii hore markay ku kulmeen gobolka Florida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu labaduba waxay ka hadlayeen Iran marka arrintu markii hore waxay u muuqatay Iran in lagu sii jeedo laakiin waxa leeyahay waxay ahayd arrin la karkarinayay waxaan ka qarxay gudaha waddanka Venezuela iyo duulaanka lagu qaaday shalay madaxweynaha waddanka Venezuela warbu soo saaray oo leeyahay waxaan diyaar u ahay wada hadal Mareykanka inaan xiriir ganacsi la sameeyno iskaashano arrimaha la dagaalanka mukhadaraadka aynu ka wada shaqeyno arrimahaas oo dhan buu lahaa marka waxaasi oo dhan waxay u muuqanayaan in meesha laga saaray oo toos loo weeraray arrinta kale oo muhiimka waxa weeye oo ayadana meesha ku jirta duqeyntan Mareykanku maanta uu ku qaaday waddanka Venezuela waa waddankii sideedaad ee muddo sanad ah intii xilka uu hayay madaxweyne Donald Trump uu weeraray waxaynu ka warqabnaa bishan January bisheedii kale 2025 waa 12 bilood inuu xafiiska joogo madaxweyne Donald Trump laakiin imisa waddan ayuu weeraray Venezuela ugu dambeysay Yemen Iran Soomaaliya Iraq Suuriya iyo Nigeria sideed waddan ayuu weeraray Mareykanku madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxyaalihii uu ku soo dagaal galay waxaa ka mid ahaa dagaaladan Mareykanku ay ku lug leeyihiin in uu soo gabagabayn doono dagaalka Ukraine soo gabagabayn doono dagaalkii ka socday Mareykanka Gaza uu soo gabagabayn doono ama bariga dhexe sida hadalka uu dhigay laakiin imisa dagaal ayuu abuuray bay leeyihiin qobrado Iran weligeed ma dhicin baa leeyahay madaxweynaha Mareykanka inuu weeraro laakiin Donald Trump ayaa u bareeray kadib markii diyaaradaha dagaalka ee B2 uu ku duqeeyay saddexda xaramood ee nuclear-ka ee waddankaasi Iran Isfahan Natanz iyo sidoo kale xarunta kale ee Fardo dhammaan arrimahaas oo waxay muuqanayaan hadalkii madaxweynaha Mareykanka inuu yahay hal bacaad lagu lisay iyo ballanqaadiisi ahaa si hadalka loo dhigay in dagaal uusan sameyn doonin waxa kale oo xusid mudan Mareykanku hadda waxa leeyahay xoog wuxuu saari doonaa wadamada Latin America oo dagaalkan bariga dhexe iyo hawlahan uu ku jiro wuxuu rabaa inuu xagga bariga u jeesto Latin America waxa leeyahay haddii Venezuela laga takhaluso waxa dhici karta in loo jeesto Colombia Cuba laftigeeda markaas Brazil
si loo sameeyo wadamo Latin America ah oo Mareykanka ku xiran si meesha looga saaro Shiinaha iyo Ruushka saameyntooda. dad badan waxay leeyihiin wadankan Venezuela haddii xaaladdu sidan maanta ay ku dambayso waxa dayacay ugu horeyn doona waxay noqon doonaan Shiinaha iyo Ruushka. maxaa yeelay Shiinaha shidaal aad u badan ayuu ka dhoofsan jiray wadankan Venezuela. Ruushka sidoo kale marka sida muuqata Ruushka wuxuu ku mashquulsan yahay dagaalka wadanka Ukraine. sababta marka Mareykanku wada hadalka uu la gelayo oo leeyahay laba gobol baan ku siinayaa ee dagaalkana jooji, dad badan waxay ku macneynayaan xitaa qobarada Mareykanka oo kamid yahay John Mearsheimer waxay leeyihiin waxay u muuqataa in leeyahay adigu halkaas ku ekow, labadaas gobol qaado, Donbas la isku yiraahdo, arintu halkaas ku ekaato. laakiin aan u madax banaanaado hawlahayga kale ama Iran ha noqoto ama dhankaas Latin America ha noqoto. marka arintan Venezuela waa cashar weyn baa leeyahay kuna noqon karta caalamka oo idil ayay noqon kartaa. وهاجاج maxay kaloo arintan dhalin karta ayaa la isweydiinayaa xagga Shiinaha maxay ka dhalin kartaa. waxaynu ka warqabnaa Shiinaha laftigiisa in wadanka la yiraahdo jasiiradda Taiwan wadan ma aha laakiin looma aqoonsana, laakiin jasiiradda Taiwan ee ka hordhowda oo iyada madax banaanida sheegatay ilaa 1949 inuu ku duuli doono ayaa la leeyahay. taas ayaa suurtagal. wararku isku soo daba dhacayaan waxa la leeyahay banaanbaxayaa bilowday meelaha qaarkood. banaanbaxyadana waxa la leeyahay waxay u muuqanaysaa arrintan inay tahay arrin lagu taageerayo qabashada madaxweyne Nicolas Maduro. dabcan Nicolas Maduro laftigiisa doorashada dhacday 2024 dad badan baa ka soo horjeeday, sida gabadhii ku guuleysatay dhawaan bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize la yiraahdo aad bay uga soo horjeeday arrintaasi. waxaa kaloo hadda soo tuuray fariin madaxweynaha wadankaasi Argentine Javier Milei wuxuu leeyahay sida halkan kaga muuqata qabashada Maduro waxay noqonaysaa xorriyadii oo horumar samaysay, xorriyadda ha waarto. aad buu amaanaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu amaanaya. madaxweynahan waxaynu ognahay inuu aad iyo aad xulafo u leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sidoo kale Israa'iil aad buu xiriir fiican u leeyahay. Nicolas Maduro Mareykanka waxay ku eedeynayaan inuu Xisbullah iyo Iran uu ku xiran yahay, waa sida lagu eedeynayay kasoo arrintaasi uu beeniyay. marka arrintan waa arrin si guud u muuqanaysa dagaal juqraafi siyaasadeed oo caalamka ku soo kordhaya. dad badan waxay lahaayeen Mareykanka waxyaalaha walwalka ka qaba waxaa kamid ahaa wadankan Venezuela haddii lug uu ku galo, yacni dagaal lugta ah. qobarada Mareykanka way ka digeen, waxay yiraahdeen wixii ka dhacay Vietnam wax ka daraba ka dhici doona yiraahdeen haddii ay lug ku galno. Nicolas Maduro laftigiisa arrintaas uu isku diyaarinayay, laakiin maxaa la sameeyey duqeyn kadibna maxaa la sameeyey in ciidamada qaaska ah ee la yiraahdo Delta Force ee Mareykanka ay ku digeen goobta ku sugnaa Nicolas Maduro. marka xog badan bay u muuqataa in la hayay dhanka sirdoonka goobta ku sugnaa, dadka ilaaladiisa ahaa, ciidankii qaabilsanaa amnigiisa, in la dhex galay ciidankii wadanka Venezuela ayay u muuqataa. maxaa yeelay wasiirka gaashaandhigga ilaa hadda wuxuu leeyahay waa dagaalami doonaa, laakiin haddii Nicolas Maduro la qabtay yuu la dagaalami doonaa ayaa la isweydiinayaa. maxaa xigi doona ayaa la isweydiinayaa. Mareykanku ma u madax banaaneyn doonaa dadka reer Venezuela inay aayahooda ka tashadaan, mise sida uu ku eedeynaya Nicolas Maduro waxay noqon doontaa Mareykanku inuu khayraadka wadankaasi u daldasho. la socda waan idin sheegnay barnaamijka intaynu ku jirnay wadankan kaydka ugu badan ee adduunka ee shidaalka ayuu leeyahay, gaar ahaan gaaska dabiiciga waa wadanka koowaad, laakiin dhaqaalihiis aad buu u liitaa. sababta maxay tahay bangiyada baa laga xiray, cunaqabatayn baa la saaray, shidaalkaasi ma dhoofin karin, hawadii baa la xiray, maraakiibtii baa laga xiray, dhowr markab baa la qabtay, ilaa 2 markab baa la qabtay oo shidaal siday. hal markab oo Bella One la yiraahdo oo Ruushka uu leeyahay ayaa Ruushka waxay u direen waxay u direen markab oo dagaal, kuwaas oo la sheegay markaa in arrintaasi ay noqotay arrin Ruushka uu ku badbaadinayay maraakiibtiisa. marka arrintu waxay ahayd arrin runtii u muuqanaysa xaaladda inay kasii darayso. xaaladan iyo warkan hadda soo kordhaya ee sii socda waxay noqon kartaa xaalad uga sii dari karta gobolka oo idil. laakiin Mareykanku waxay xaqiijinayaan hadda wararka ugu dambeeya in Nicolas Maduro ay qabteen ciidamada khaaska
وعيدا كان لقوا مقعب الدلتا فورس عيدا كان إلا يحضر meelaha ka soo dagaalameen waxa laga xusi karaa Soomaaliya oo ay ku guul dareysteen qabashada General Maxamed Faarax Aydiid oo la isku dayay in la qabto 3 Oktoobar 1993 dagaal baan oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga suuqa Bakaaraha iyo Hotel Olympic kadib markii halkaasi dagaalo culus ay kala hor yimaadeen taageerayaashii Aydiid waxaana la sheegay markaasi ilaa 18 askari Amerikaan ah in la dilay ilaa laba diyaaradood oo helicopter ah la soo riday waa sheekada laga sameeyay film kale Black Hawk Down isla markaasna mid ka mid ah duuliyaashii gacanta ay ku dhigeen dagaalamayaashii daacadda u ahaa General Aydiid sidoo kale 1980yadii ciidankan waxay ka howlgaleen waddanka Iran kadib markii safaaradda Mareykanka lagu afduubtay muwaadiniin Mareykan ah marka ciidankan hadda waxa leeyahay waa ciidan khaas ah waxay ku degeen gurigii uu deganaa madaxweyne Nicolas Maduro aan ku socono warkan iyo waxa soo kordhay hadii aynu ku sii socono waxa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Venezuela ayaa wuxuu leeyahay waxaan dalbanaynaa caddayn ah in ay nool yihiin madaxweyne Nicolas Maduro iyo xaaskiisii ma ogin baa yiri ilaa hadda meesha uu jiro madaxweyne Nicolas Maduro sidaas waxa leh madaxweyne ku-xigeenka waddanka Venezuela ayaa sidaas tiri inay nool yihiin iyo inay dhinteen ma ogin bay tiri xaaskiisii iyo madaxweyne Nicolas Maduro sidaas waxa leh madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Venezuela macnaheedu marka waxay u muuqanaysaa arrinta qabashada inay tahay arrin waxa ka jiraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagana waxa la sheegayaa inuu sheegayo madaxweyne ku-xigeenku waa gabar hadda hadlaysay ee waddanka Venezuela arrintu marka waxay u muuqanaysaa inay wax ka jiraan warkan Mareykanka ka soo yeeraya Donald Trump in la qabtay Nicolas Maduro iyo xaaskiisii dhinaca kale markaynu ka eegnana mucaaradku waxay leeyihiin Nicolas Maduro arrintan ma ahan qabasho toos ah waa wada xaajood marka ma dhici karta inuu yiri hal ay ballan qaado meesha doono inaan aadi karo oo leegeynayo waddankan aan ka bixi doono oo aan dagaalamayn hadda ka hor waxa soo baxay oo aan idin soo gudbinay toddobaadii ka hor war ku saabsanaa in Turkiga laga yaabo in la geeyo oo xitaa madaxweynaha Turkiga Erdogan uu u ballan qaaday hadii uu doonayo inuu soo baxo in waddankiisa uu magangeliyo siin doono laba nin oo saaxiibo ay ahaayeen war kale waxay leeyihiin Colombia in la geeyo dhici karta wararka qaarkood waxay leeyihiin waxa dhici karta Ruushka in la geeyo marka Nicolas Maduro ma diyaaradaha la duqeyntan ayaa walwalka gelisay oo cabsi buu dareemay ma wuxuu dareemay markaasi in arrintan ay tahay arrin halis ah oo naftiisa halis gelin karta lama oga asaga miyaa isdhiibay lama oga waayahay dad badan waxay soo qorayaan sida Maxamed Guulada kale fariin buu noo soo qoray xuutiga ayaaba ka adkaabiyay dalka Venezuela war waxaan maxay ahaayeen buu soo qoray su'aalaha la isweydiinaya kamid tahay maxaa yeelay waddankan xitaa nidaamyada difaaca gantaaladu haystay waxyaalaha Mareykanku ay ka cabsi qabeen waxa kamid ahaa in xitaa laga yaabo Mareykanka in la weeraro laakiin duqeyntan lagu qaaday labadii habeenimo ee xaray saqdii dhexe ma muuqan in laga hortagay Mareykanka iyo duqeymaha uu sameeyay diyaaradihiisa dagaalka sababtoo dhowr diyaaradood oo nooca F-35 ayaa ka qayb qaatay weerarkan waxa kale loo badinayaa maraakiibta Mareykanka inay duqeeyaan laakiin waxa la arkayaba diyaaradaha helicopter oo dul maraya magaalada Venezuela waxayna magaalada Caracas ee caasimadda Venezuela waxayna u muuqdaan diyaaradahaasi helicopterada inay ahaayeen diyaaradihii qabtay Nicolas Maduro dabcan ciidanka kale Delta Force waa ciidamo adeegsada diyaaradaha dagaalka waliba joog hoose ku socdeen arrinta marka waxa la isweydiinayaa oo kale aawi dadkii dagaalami lahaa 4,500,000 shacab iyo ciidamo ayuu diyaariyay Nicolas Maduro maalmaha dhan uu faanayay wuxuu lahaa Mareykanka midaan ku dhigna waa la arki doonaa qabuurihii Mareykanka ka qodi doonaa waddankan Venezuela waxaasi oo dhan meesha ayay ka baxeen arrinta marka waxay u muuqanaysaa Nicolas Maduro kaligiis inuu noqday oo taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha ay ka soo horjeesteen oo markaas arrintii la dhex galo oo laga shaqaystay sida waxa leh xitaa qubarada Mareykanka ayaa leh sababta waddankan waddan diyaarsan buu ahaa ciidankan ayuu diyaarinayay halkan aan intusana muuqaaladan ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyay oo ahaa inay dagaalami doonaan sida muuqata
waxay kaloo arrintan boqolkiiba boqol u muuqataa in la kala furfuray ciidanka sida wararka ugu dambeeya hadda ay sheegayaan. waayahay sidoo kale maraykanka waxaa lagu eedeynayaa goobaha uu weeraray inay yihiin goobo rayida haddii aynu isku dayno inaynu kusii soconno. waddankan Venezuela maxaynu ka naqaan taariikhdiisa bal wax yar aynu qoraansanno. waddankan Spain ayaa guumaysan jirtay, dadkiisu waa 28 milyan iyo 400,000. waa waddan runtii shidaalka hodan ku ah, laakiin cunaqabatayntu ay waxyeello weyn gaarsiisay. marka laga hadlayo waddankan waa waddan runtii aad muhiim u ah, baaxaddiisu ay aad u weyn tahay, dadkiisu inkastoo aysan badnayn 28 milyan yihiin, laakiin haddana waxaa lagu tiriyaa in waddankiisu runtii waddan dhaqaalo badan leh oo xagga shidaalka kaydka shidaalka ah. inkastoo waxaas oo dhan uu leeyahay, laakiin haddana wuxuu ka gelayaa caalamka GDP marka la yiraahdo wax soo saarka waddanka 69 buu ka gelayaa. taa macnaheedu marka waxay tahay dhibaatada dhaqaale ee waddanka haysta inay tahay mid aad iyo aad u xun, oo haddaad damacdo inaad soo iibsato wax soo iibsato lacag badan ayaa u baahantay inaad ku qaadatid gaariyoonana ku qaadatid ama gaari gacana ku qaadatid, oo macnaheedu ay tahay lacagtu inaysan qiimo lahayn. sababtuna waxa weeye waxa la yiraahdo cunaqabataynta saaran. war kale ayaa hadda soo dhacay sida hadda muuqata, bal aynu isku dayno warkan inaynu hadda eegno. warba hadda soo dhacay, warqabadka aynu ka eegno. waxaa hadlaysa oo war soo toortay hogaamiyaha mucaaradka Venezuela, gabadha la yiraahdo Maria Corina Machado. waxaana ay sheegtay waxaan Venezuela ka dhigi doonaa xarunta tamarta, tiknoolajiyadda iyo dimuqraadiyadda ee qaaradda Ameerika. dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa, dal ifaya oo dimuqraadi ah oo xor ah ayaan samayn doonaa. fariintan waxay jeedisay 11 December. la socda gabadhan dhuumasho ayay ku jirtay tan iyo 2024 kadib markii ay ku andacootay inay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday waddankaasi. gabadhan waxaad la socotaan inay ku guuleystay dhowaan abaalmarinta loo yaqaano abaalmarinta nabadda ee Nobelka. weliba Trump ayay ku guuleysatay, oo isagu doonayay in uu markaasi ku guuleysto. waa yahay waa tahay xaaladdu marka way adkaanaysaa. waxaynu u badan tahay gabadha inay madaxweyne noqonayso. gabadhan aad bay ugu dhowdahay Maraykanka. waddanka Ruushka ayaa hadda war soo tuuray. wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Ruushka ayaa waxay sheegtay inay tahay wax laga qowmeeyo, isla markaasna ay cambaaraynayaan ficilka gardarrada ah ee Maraykanka uu ka fuliyey waddanka Venezuela. Latin America waa inay noqotaa aag xor ah oo nabad ah ayaa la yiri. waxaa kaloo soo hadlay ku-xigeenka xogayaha amuuraha dibadda ee Maraykanka. wuxuu yiri Nicolas Maduro ugu dambeyntii cadaaladda ayaa la hor keeni doonaa. macnaheedu waxay tahay in gacanta lagu dhigay. haddaynu dib ugu laabanno gabadha hogaamiyaha mucaaradka lagu magacaabo Maria Machado, Maraykanka aad bay ugu dhowdahay. marka la eego siyaasadda gobolada iyo siyaasadda caalamkana Israa'iil bay aad ugu dhowdahay, oo waxaynu ka warqabnaa inay aad iyo aad u taageertay Israa'iil. halka Nicolas Maduro asna Iiraan iyo Falastiiniyiinta iyo Xisbullah iyo Ruushka uu aad ugu dhowaa, ilaa iyo Kuuriyada Waqooyi dhinacyadaas ayuu isaga laftigiisa aad ugu dhowaa. marka waxaa moodaa siyaasad weyn oo isbedel inay socoto. dad badan arrimaha gobolka ka faalooda waxay leeyihiin xaaladdan waxay noqon kartaa isbedel weyn oo ku yimaada qaaradda Latin America. oo maxaa dhici kara? waxaa dhici karta madaxweynaha waddanka Colombia, oo aynu ognahay Maraykanka meesha kala joogaan, in isaga laftigiisa xaaladdu ay ku adkaato. waxaa kaloo ka mid ah Cuba, inkastoo Cuba weligeed Maraykanka iska horjeedeen. Brazil laftigeeda ayaa la leeyahay xaaladdan oo ku imaan kartaa. aynu eegno war hadda soo dhacay. madaxweyne Gustavo Petro, madaxweynaha Colombia, wuxuu yiri ciidamada ammaanka dadweynaha ayaa loo dirayaa xuduudaha, waxaana la hawlgelinayaa dhammaan xogaga taageerada ee la heli karo haddii ay dhacdo qulqul ballaaran oo qaxooti. dowladda Colombia waxay si cad uga soo horjeedaa gardarrada lagu sameeyey madax bannaanida waddanka Venezuela iyo guud ahaan Latin America.
ma arkaysaa laftigiisa walaac baa galay madaxweyne Gustavo madaxweynaha waddankaasi Colombia waa yahay xaaladdu marka halkaasi maraysaa waxaa leeyahay arrintan waxay u muuqan kartaa oo kale inaysan adduunyada ka jirin waxa la yiraahdaa qawaaniin oo cid walba ciday ka xoog badan tahay ay jiiri doonto muquunina doonto madaxweyne Nicolas Maduro iyo xaaskiisii meel ay ku sugan yihiin jaani yacri meel ay dhigan lama oga meel ay ku sugan yihiin lama oga waa ninkii dhowr toddobaad ka hor qofka ciyaarka ciyaarayay ee lahaa anigu baddaas kumaba jiraba muusikada ayaa ii shidan oo qofka ciyaar baanu iska wataa ninkii hadda waxaa leeyahay isagoo jeebaysan ayaa Maraykanku ay qaateen gaar ahaan ciidamadii leeyahay Delta Forces ee sida gaarka u tababaran balan tusno Nicolas Maduro iyo xaaskiisa sawirkeeda farsamada iyo xaaskiisa aan ilaahdo ali ahada loo arkaysaan meel ay ku sugan yihiin raq iyo ruux lama hayo madaxweynaha waddanka Venezuela barnaamijku waa gabagabo maxaa soo kordhay wararku waa soo daba dhacayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xaqiijiyay in la qabtay madaxweyne Maduro iyo xaaskiisii waddankana laga saaray madaxweyne ku-xigeenku waxay leedahay waa waddanka Venezuela waxaan doonaynaa xogta ku aadan madaxweynihii iyo xaaskiisii iyo meesha ay ku dambeeyeen goordhow madaxweynaha Mareykanka ayaa shir jiraacid qaban doona Shiinaha ilaa hadda war kama hayno wadamada gobolka waxaan ka haynaa oo kaliya madaxweynaha waddanka Colombia oo isaga laftigiisa Mareykanka aad uga soo horjeeda farintaasi uu jeedinayo war baa soo dhacay aynu eegno warkan wuxuu ku aadan yahay isagana waa yahay weli jahwareer baa ka jira gudaha waddanka